اخوتي في العقيدة waxaan intii rabbiina karsiyo ka odhan doonaa masaladaasi ku saabsan taطhiiru nafsi wa taskiyatiha aw taskiyati اlanfus nafta in la daahiriyo oo la zakeeyo annafs waxaan marka kan ujeednaa alquwa almudrika almukhtaara yani fi luga nafsigu ama shareecada wuu ku soo aroraa iyadoo qofka bini aadamka o dhan loo jeedo oo fi anfusikum afalaa tubsiruun waa soo aroora iyadoo xataa dhiigga looga jeedo waa kuwii fuqahada odhan jiray maa lahu nafsun saa'ila waa soo aroora iyadoo ruux qura loo jeedo waxaynu uga jeednaa halkan markaanu tilmaamayno quwada ama awoodda qofka bini aadamkii wax ku dareemo ee wax ku doorto ee khayrka iyo sharka kala doorata ee samaha iyo xumaanta kala raacda ee isbedbedelka badan leh waxaa aada u cajiiba waktiyadan dambe basharku bukaanada qaarkood aada buu u arkaa gaar ahaan bukaanada jidhka ku dhaca sidaa awgeed baa mujtamacaadkan dambe ee ilaahay ka fogaaday waxay daryeelka ugu badan siiyaan jidhka daryeelka ay siinayaan wuu xad dhaafaa iyadoo aan laga fekerin qaybo ka muhiimsan jidhka oo nafta bini aadamka leedahay jidhka aad baa looga fekeraa oo hadduu xanuunsado dhakhtar baa la geeyaa waa la daweeyaa oo hadduu gaajoodo hudheeladaa lagula degdegaa cunaa la siiyaa oo hadduu haraado waa loo waraabiyaa oo hadduu qaboobo koodhar baa loo xidhaayo bustayaal baa loo iibiyaayo waa la diiriyaa oo hadduu kululaado waa la qaboojiyaa mukayafaat iyo waxbaa loo dhigaa oo noloshoo dhan waxaa loo fekeraa jidhkan sidii loo hagaajin lahaa waxaad kaloo moodaa jidhka caynkaa qiimaha intaa leeg la siiyey qaybo ka muhiimsan oo nafta bini aadamka ay leedahay inaan muhiimad intaa leega la siinin qaybo aynu leenahay inaad janno gasho iyo inaad naar gasho iyaga ayay ku xidhan tahay qaybo aynu tilmaamayno inaad wanaagsanaato iyo inaad xumaato iyaga ayay ku xidhan tahay qaybo nafta bini aadamka kamid a aynu leenahay masiirkaaga iyagaa ku taxakuma iyaga muhiimadba lama siiyo sidaa awgeed buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo arrintan inagu boorinayo wuxuu lahaa ina allaha laa yandur ilaa suwarikum walaa ilaa ajzaamikum ilaahay ma fiiriyo oo ma eego oo qiimo agtiisa uguma fadhido suuradda siiyey inaad madowdiyo inaad cad tahay inaad qurux badantiyo inaad foolka tahay inaad gaabantiyo inaad dheer tahay suuradda aad leedahay walaa ilaa ajsaamikum iyo xooggiinu inta uu leegyahay tamartiinu iyo feedho burnidiinu intay leeg tahay muruqiinu siduu yahay cujuul bini aadama inaad tihiin dibidan yaryaro dadku rabeeyo waa dibi noocan muruquun inta la dhiso qof yaroo dibiga leegumad arkaysa una muruq waliba ka dibiga aanu ka yarayn laakiin khawaa nafsi uu ku jiro noocaad tihiin ilaahay ma eega sida tani baa la yidhi walakin nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waxaa la eegaa subxaana watacaala qalbiyadiina alquwa almudrika iyo camalka kasoo fulaya siduu yahay acmaasha kasoo fulaysa sida ay tahay waktiyadan dambe aadka dadku uu sii durkee gaalo lagu dayday noloshoo dhami waxay ku salaysan tahay jidhkan un sida loo dhalaaliyo iyo marada la saarayo wax allaaliya waxa iclaan t v ka socda ee saabuun leh shaamboo leh cream leh kan leh kan leh kan leh
wuxuu ka warramayaa mid jidhka jilciya, mid khafiifiya, mid nadiifiya, mid caseeya, mid madoobeeya, mid kalareeya, mid nooc kale ka dhiga. waxa la wado oo dhami waa jidhkan iyo maradu qaadan lahaa iyo siduu u dhalaali lahaa ama noocu u ekaan lahaa. iyadoo ilaahay qur-aanka ku tilmaamayo qaar fedha buuran oo aan alla agtii qiimo ku lahayn. waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum baa ilahay yidhi wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanada. hadday hadlaan baa ilahay yidhi waidaa ra'aytum tucjibuka ajsaamuhum. munaafiqiin baa ilahay ka warramayo waxaa la yidhi haddaad eegto xoogooda iyo siday u qurux badan yihiin waad la cajab gelaysaa baa la yidhi subxaana watacaala. wain yaquluu tasmac liqawlihim kaanahum khushubu musanad. hadday se warramaan baa la yidhi oo cama fi lqalb wixii nafta ku jira ay tacbiiriyaan waxaad moodaa baa ilahay yidhi qoryo meel lagu tiiriyey. qorigu hadduu geedkiisa yay waxtar buu leeyahy, haddii la gooyo wax lagu dhiso waxtar buu leeyahy. haddii laakiin geednimadana laga jaro oo la gooyo asaan waxba lagu dhisine meel laskaga tiiriyo manfacba ma leh. manfac ma leh. yani labada goor manfac buu yeelan lahaa. hadduu geedkiisa iyo manfac buu yeelan lahaa oo in la hadsaday in la midho laga cunayo in waxuun manfac buu soo kordhin lahaa. haddii inta la gooyo wax lagu dhisto wax lagu qabsadana manfac buu yeelan lahaa. lakin ilahay kuwan wuxuu yihi kaanahum khushubu musanada yaxsabuuna kula sayxatin calayh hum lcaduw faxdarhum qatalahum allahu anaa yufakuun. idan waxaa aada loo buunbuuniyey waxaan buunbuunis u baahnayn. sidaa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu alla ina abuuray oo inaga yeelay wajacalnaakum shucuuba waqaba'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi asqaakum. miisaanku inuu wax kala yahay. miisaanku ciddaad ka dhalatay iyo ciddaad u eg tahay iyo xooggaad leedahay iyo abtarsiinkaad leedahay inaanu hayn. si awgeed baa waxaa la yidhahdaa cabdillahi ibnu mascuud nin saxaabiya oo saxaabadii waaweyneyd kamid ah ayuu ahaa. xagga tamarta laakiin nin aada u tamar yar buu ahaa baa la yidhahda. nin aada u mijo dhuudhuuban buu ahaa. dabeetana maalin baa cabdillah oo dabaylyaro haylaysay qola saxaabi akeena way qosqosaleen. mijihiisi iyo waxinta la arkay ayaa la qosqosalay. markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh atacjabuuna min diqati saaqiy bni mascuud. ma waxaa ka yaabantihiin dhuudhuubnida cabdillahi ibni mascuud miyaa la yaabteen buu nebigu ku yidhi waladii nafsu muxammadin biyadi lahuma fi lmiisaani cinda allahi asqalu min jabali uxud. ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye labadaa dhudhun ee aa arkaysaan miisaanka qiyaamaha marka la saaro buurta uxud ka culays weyn buu nebigu yihi. labadaa dhudhun ee hadda idinla fiiqfiiqan ee mawdicu daxki idinka idina meel lagu qabsalo idinla agtiina ka ahay miisaanka qiyaamaha haddii la saaro buu nebigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu calayh buurta uxud ka xoog badan. idan waxaynu u baahanay inaynu in badan eegno meesha u baahan eegista. sidaa awgeed ayaa waxaan leenahay dadku maanta qofka jidhkiisu dhinto way u ooyaan. hebel waa dhinto ama waa xumaaday ama nafti baa haysata ama ninkii hebele waa isbedelay waa loo ooyaa. laakiin ninka ruuxdii ama naftii ama qalbigii ku jiray uu madoobaadee dhinto cidiba ma oga. wallahi waa shaqaystaa waa xoogsada waa nin digdiglo halkan ordaya baa laleeyahay. isaga qiimo badan looma arko. laakiin maydka nool baa ugu daran. ka naftuna ku jirtay haddana maydka aan tirsiiska ahayn kaas baa mayd ugu foolka. waxaan leenahay waxaynu u baahanay inaynu naftan daahir yeelno, inaynu naftan nadiifino oo ka nadiifino uskaga dhammaantiin. uskaga gaalnima ugu weyn. inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi. uskaga gaalnimadaa ugu weyn, macaasidaa ku xigta, waxaasoo dhan in laga nadiifiyo, in la daahir yeelo, in dunuubta iyo macaasida iyo xumaa naftani siday u go-aansan lahayd inay ka tagta in loo traingareeyo, in la baro siday u daahirsami lahayd. maxaad u malaynaysaa maalinta dadku uro haddaad urto? maanta haddaad mujtamacan dhexdiisa urto waad khajilaysaa. sacagaa maaha.
dad meel soo fadhiisato qof waliba dadku ay hoosta kaa wada eegaan oo la yidhahdo ninkan dhidudka qurmuun muxuu meesha kasoo doonay ooga ay kaa muuqato fool xumaahi adna waad khajilaysaa dadkao dhamina wuu ku kahanaya laakiin mar baa jirta urtu taa ka kulushahay walidalik ayaa moxamed ibn lwasic caalimkii la odhan jiray muslimka ahaa oo taabiciintii waaweynaa kamid ah rag way zayn lqura la odhan jiray ahaa ayaa wuxuu yihi moxamed ibn lwasic waa nin taabiciyo aada u weyn oo raggii runtii muslimiintu ku dhaadan jirtay waa nin caabida bale waxaa la yidhahdaa maalintii kabul la furanayey ayuu qutaybata ibnu muslim ninkii kabul furanaya wuxuu yihi war moxamed ibn lwasici raadiye me xagguu jiraa laba riwaayadood baa soo aror qolna waxay idhahdeen masaajidka isagoo ilaahay baryaanu aragnay qolna waxay leeyihin ciidanka maymanadiisaanu ku aragnay isagoo farta kor taagay oo ilaahay baraya farta ama gacanta buu yihi moxamed ibn lwasic ayaan kumaankum ciidan agteyda lagaga jecelay yani raggan in moxamed ibn lwasic ku jiro haddana ilaahay baryaya ayaan ciidamo aada u tiro badan laka jeclahay buu leeyahy raggii ilaahay ku xidhnaa buu ahaa ninkuu lahaa xasan albasri huwa zayn lqura ayuu ku sheegayay moxamed ibn lwasic baa wuxuu odhan jiray ba la yidhi law kana lidunuubi raa'ixa ma istataaca axadu an yujaalisani dembigu buu yihi hadduu uri yeelan lahaa qofku inta uu dambaabo hadduu uri lahaa buu yihi majliskayga cidiba ma fadhiisan karteeteen meesha aan fadhiyo cidiba ma fadhiisan karteen buu ley haddii qof waliba uri lahaa inta uu dambaabo waktigan aynu halka joogno ilaahay baa asturay ilaahay baa ina qariyo asturay inteena meesha fadhida mayna wada fadhihi karneen haddii nin waliba inta macaasiyo dembiyo qurunku soo sameeyey korkiisa ay ka uri lahayd cidiba may wada fadhiisateen laakiin maxaad umalaynaysaa maalinta dadba uri doono urtaadu waxay bilaabaysaa marka naftu kaa baxdo walidalik ba xadiidkii imaamu axmed werinayay muxuu tilmaamayey malaa'igta ayaa timaada dabeetana malakulmood markuu nafta qabtaa buu u dhiiba hadday naf wanaagsan ahayd intay xanuud iyo wax mariyaan wax udgoon oo kafan lagu xidhaabaa naftiisa la qaadaa dabeetana samaday lasii koraan malaa'igta cid kastoo ay lasii agmaraabo waxay idhahdaan man hadihi aruuxi ayiba war naftan fiicani waa kuma markaasaa la yidhaha wa fulan ibnu fulan waayo waa naf carfaysa oo udgoon oo malaa'igtu ay ka yaaban tahay haddaad nooca kala tahayna kuwa ku qaadaya kugu dhibmuta markuu malakulmoodku ka soo jiida jidhka kuwa loo dhiibay qaadaya ku dhibmuta ciddii kastee lala agmaraaba waxay dhahan war beliya baaskan qurmuneed sideetaan muxuu ahaa man hadihi aruuxi alkhabiita tan baase asitaan maxay ahayd bay idhaahdaan markaasaa la yidhahda waa fulan ibnu fulan idan waad uri doontaa weliba waxaad uri doontaa biqadri macsiyatik aw biqadri taqwaak intaad ilaahay ka baqatay subxaanahu watacaala amase intaad ilaahay caasiday ayaad uri doontaa markaasaa weliba waxa lagu keeni doonaa maxshar iska dhan oo halkan foolxumadaada iyo intaadan 10 qof ama 20 qof inay ku aragtaaba kula weyn ee yawmaidin tucraduuna laa takfaa minkum khaafiya meel yawma yaquumu lashhaada bashar oo dhami aadam laga soo bilaabay ilaa kii u dambeeyey meel uu taagay inta lagu soo taago ayaad adigoo macqurmuunkaaga iyo uri doontaa sidaa awgeed waxaa habboon inaynu naftan u dadaalno sidaynu u daahir yeeli lahay inaynu sharka ka reebno inaynu wanaagga ku train garayno nolosha wax walba waa training wax kastoo aad training u qaadataa waa training u noqotaa way kuu fudud yihiin hadhow inaad qabato maanta inaad gaadi kaxaysaa adigoo aan weligaa gaadi kaxayn ma fududa haddaad tidhahdo waa bahalka soo wadada un lama mariyo bahalka yar nacaynkaa laguma yidhaahdo balaa nacabun baa lagu taasaabtaa maxaad kale ka qabataan keena waan kaxaynaya haddaad tidhaahdo intaad kaxayn karaysaa yani kollayba gaadhigaa uhoreeya wuu baaba'aya ka labaad waxa lakaa siiyaba derbi ku dhufatay kan jiidha meeshan geysay waa you are not training laguma tababarin laakin haddaad in yar tababarato
maskaxdaada focusing bay samaynaysaa, waxa ka dambeeya, waxa ka horeeya, waxa hareeraha maraya oo dhan bay markuna la wada soconaysaa. gacmahaagu way train garoobayaan, adig iyo gacantaadu way wada soconayaan oo kileeshka iyo gacanta iyo adigka isku sibay wada dhaqdhaqaaqayaan. mar kastoo reflex action aad yaran naxda ama wax qoonsato labada adinba mar bay wada dhaqaaqayaan oo kileeshka iyo breega wada qaban. yani waa train garowday. zafar awaamir bay maskaxdaadu bixinaysaa aanay ka fekerin. markan waad u fekeraysaa marka aad garanaynin oo xagga usii socday war xaggaad qabataa waad cabaar baad fekeraysa intaad fekerayso meesha bay gaadhayaan. laakiin markaad train garaysantay maskaxdu uma baahna inay ufakerto war maxaad qabataa ee automatically as a reflex action iyadaa iswadaysa oo meeshii lagu dhegi jiray adigoo aan ogeyn baad ku dhegaysaa. uma baahnid markaa inaad ka fekerto soo jeedo tiraahdo marka geedka la gelinayo matuugan geliya salmsa triga ma fekeraysid gacanta umaad ka wadwata una caynkan ubaad leeleeday maad fekeraysid. waayo you are training, waa lagu train gareeyey. mar haddaad shay trained u noqotana maskaxdu logaritmkeeda si rasmiya ugu samaysmaa. dabeetana marka wixii loo baahday uu iska soo fulaa iyadaan looga baahnayn inay ka fekerto. idan nafta bini aadamkii waxay u baahantahay in la train gareeyo oo lagu train gareeyo siday u nadiifoobi lahayd. inaad tababartid oo ku tababartid khayrka, tababartid oo ku tababartid sharka saaad uga controli lahayd oo uga qaban lahayd, uga xejin lahayd. waxay u baahan tahay markaa wasaa'il. sida awgeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu calayh markuu khudbadaynayo khudbat alxaaji buu akri jiray. khudbat alxaaji waataynu akrinay. waxyaabuu nebigu ilaahay ka magan gelaya maxaa kamid ahaa? wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayi'aati acmaalina. khudbadiisu nabigu bilaabaga ayay ugu jirtay. ilaahayna waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda iyo xumayaasheeda ay samaynaysa buu ilaahay kasii magan gelayay subxaana watacaala. idan nafta bini aadamka waxay u baahan tahay inay ilaahay ku tiirsanaato, inaad xasuusnaato nafta tan iyo legdankeeda, inaad u baahan tahay inaad tahiriso. nafta in la train gareeyo la tahiraa waa shaqooyinka ambiyadaba loo soo diro. u fiirsa qur-aanka. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya dhowr shay oo laleeyahay waa shaqada ugu weyne nebiyadu qabtaan. kama arsalna fiikum rasuula minkum yatluu calaykum aayaatina wayuzakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum ma lam takunuu taclamuun. وفي آية أخرى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي آية أخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآيات إلهي وقلت الماما وظيفة الرسل شقد الرسول الله صادرة كو والتلاوة بالي يتلو عليهم آياته أي البلاغ المبين إنه دكا قارسيه كلمة التوحيد إنه كد الأخريه آيات الله سبحانه وتعالى قوة كونية قوة وحيين آيات قدرت تصير. وحكى الله شيء ويعلمهم الكتاب والحكمة. العلم علم الكتاب والحكمة أو الكتاب والسنة إنه دكا وأقام برا وأقامتي هنون كي تتكا نولولات افتيمين يستينوا برا. وحكى الله الرسول شكم دبا ليلي شقدوا ذا ويزكيهم. إنه تزكية التزكية في اللغة والنماء والطهارة والبركة بينهما. كلمة التزكية في عربي وحي كطاي وكبع إيا نظيف إيا بركين. ويزكيكم بالليل مركا إنه يدين كبعيه ونفت بني آدم كاهي waxay la mid tahay marka wax loo train gareynayo sida markaad yar tahay gacanta lagu qabtaa adiga lagu toosiyaa ha ku fina jabin ha dhicin baa lagu yiraahdaa kullu dalik waxa lagu train gareynaya inaad socon karto in lagu train gareeyo baad u baahan tahay dariiqa xaq ah inaad marto in lagu train gareeyo baad u baahan tahay dariiqa sharka in laga awdo idan waxa la yiri wayuzakiikum waxa alla uu soo diray rususha التزكية إلي سميسو تطهير الأنفس
nafta inay daahir yeesho xumaha inay nafta ka daahir yeesho sidaa ogeed baa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ilaahay markuu baryayey wuxuu lahaa rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayuzakiihim inaka anta alcaziizu alxakiim ilaahayow buu lahaa ummadayda duriyadayda rasuul iyaga kamida ka soo saar oo maxay qabta ku akriya ilaahay aayaadkiisa kitaabka iyo sunnada bara wayuzakiihim tahira taskiyeeyo oo tahira saaweed buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayy xadiiskii imaam albukhaari fi ladab almufrad uu ku aroorinayey axmed iyo xaakimana soo saareen culamo badan inay bimajmuuci turuqi ay ku saxiixinayaan kalxaafid ibn cabdilbar inama bucidtu liutamima makarim alakhlaaq aw liutamima saalix alakhlaaq nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaaba la ii soo diray aniga inaan dhameeyo dhaqanka fiican inaan dhamaystiro yacni basharku markasta uu gaaloobo macnaheedu ma wada noqdo inuu dhaqanka dhammaantii ka wada guuro ee waxba xumaada waxna wuu sii hahayaa un ambiyadii hore iyo dadkii saalixiinta hore wixii ay ka tageena nebigu wuxuu leeyahy waxaan rabaa ma fitrada qof baa weli fitradiisuba iska saliimto aan shayaaiintu aada ugu badanin waxaa la ii soo diray buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inaan dhammaystiro dhaqanka kiisa wanaagsan waxaynu u baahan nahay inaynu masaa'il aada uga fakerno masaladani masale fudud maaha waa masale ama janno ku geynaysa ama naar ku geynaysa waa masale ilaahay qur-aanka dhaartay oo mufasiriinta qaarkood ay tilmaamayaan 12 jeer dhaartaasi weeyaan mufasiriinta kuwa ugu yarina ay leeyihiin 7 jeer weeyaan والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلهي ودار تضبع يدود كوني الله قدام هذه قفرون شيء جري مركب ربع أو قاعتين أو ورقو شيء واللي بالله راعي محمد ملايين يعني وين قدر أن تدوي يا وركن ورع علوصات فريستين أنا يا حين إن أدلك تسوي نتنو قليتين مركي هرب أنك وركي سوى تفرميتين سرهم بدو هيتسي لكن هطول دارت معناه يدو حويان إنه موتين اليوم والرون قرا هيك قادنا الروح خطر وغاضة هدو رب السماوات والأرض دارتي إلهي ما دارنا إياه وأن مرة هين أو لبا هين أو صدح هين أو أفر هين أو شر هين تضبط شير دارنا إياه مفسرين تقاركوت سيد المامي أنه كوبي 8 شير دارنا إياه داد والشمس وضحاها لما كلا دكتي أو أتأودي إلهي ما عاد عيد كل دارتي يبرغن كده كل دارتي ضيح يدب سعود كيس وعلى هذا دب صعده مال هي فايدة تيده والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إلهي مكو صار دارته سبحانه وتعالى دارته محاجة بالجبوة وحاجة بالجبوة قد أفلح أي لقد أفلح لام الموطأ للقسم ولا قصر ربال إلى ضمر كاي ديرات قسم أي لقد أفلح من زكاها واللي باني با إلهي إليه سبحانه وتعالى كي نفتي تطهري أما كي قال له نفتي تطهري بفضل الله يوم يكون طاهرا طاهر نفتي إلا طاهر يالي إلا الذي فيه واللي باني با إلهي إليه وقد خاب من دساها وهو غيباء لله سبحانه وتعالى نفتي إلا آصي إيان لا نظيفنين إيان لا طاهرين وهوكتي إذا مسألة مسألة فضضناها ومسألة كسلسان إلا هوغو إيا إلا الليبانو وهل لنا الرسوش وحا الله صدر إن فهد كبرية قوقي إن إصلاحيان وهقاتيان وطاهران إن حق تصيان
بعد الدعوة التوحيد لا إله إلا الله مركا إلى هدان كذب محوق لها النبي موسى فرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وفرعون هل لك إلى أن تزكى ورمكوسك أنت إن النفس هذا طاهر يشوف إن تسفيع نيسيسه وأهديك إلى ربك وأن إلهنا كبهر سبحانه وتعالى صدبت أنا فتخشى هذا لك عبستي تنمكوع تنطاه وحل هذا النفس طاهر لماذا هو مسألة مهمة ومسألة أنه لنا الجنة بوصفك سريع يضع الغقلة إلهي بقراك وحكو ليه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى إلهي بوحلي سبحانه وتعالى قيامها منك يما ديسه إيمان كسبا عمل ونكسن نسو سميي كوا سبوت كي قليان جنة ميل سريك قليان جنة النقادق أبي قليان جنة هوستيد وبيال دريريان بيتقيان وميل كواريان إلهي بحلي مكان وذلك جزاء من تزكى كاتبان ليلي سبحانه وتعالى وأبا المركي عدي نفتي سطهر طيئة هجاجي سي أبا المركي ديوية نفتين طاهر يا شامكا مفضوضة وحيوبا هنتهي معونة الرحمن إلهي ندوك على الميسطه إن إلهي كتير صداد وبا هنتهي وهذا إلهي ويدي تفينو تندح هذا كتير توكاقا قرقارو طريقة سنين يمرطين وألكوه قرقارو وهي النفس قرآنكم مروحكم شغيين الأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء النفس بالليل لأمارة ومد أمرد بدن لآمرة لمورا لأمارة بالسوء بالليل ومد أمها فرس بدن وكو سوء هذا مرقنا يتكفرتون مركا آمنتي دمية لايكا هاري سوحا ما يهاتي شهوات كذا يا هوده يا وحي دوني سي ماشي ربطا وهبين يا مالين بوا جوجت وكو سوء العلنسا وما هو فرطابا لي سبحانه وتعالى لكن نفط عين قاسيه هدي للربيو لكبعيو طريقه لو خجيو وكوري كرتا وحي غاري كرتا الهي لي محي لا اقسم بالنفس اللوامه اقول دارنا يا بالا لي سبحانه وتعالى النفس اللوامه تيسعنانته حيث عنانته وحي هذا خيرك ويسكو عنانته بدي بيلادي مركزته صوت لو نافي خير ويسكو عنانته آخرنا dadka wanaagsani markuu jannada iyo waxa la helaya arko wuxuu yiraahdaa nacasnimo ku raacday meelihi iska fadhiday dhulkii aad joogtay ma waxaan shaqada baad kororsan kari weyn wuxuu isku canaantaa wixii uu beerdareeyay waqti ahaa iyo kan nafta wanaagsani markay xumaha samaysana way canaanataa oo ma ilaahay aad caabsiday buu yiraahdaa toobad iyo naftu dib bay soo canaanataa oo nadam ومن شروط التوبة إن تكمل وتحمها الصميتين وشرط كم ده شروط التوبة إذا هيركي هو رح مفرك ويكسوك وعدا وحي من كرتا النفس اللوامة هاي علماء إلى هذا ويكسي كوري كرتا وحقي قاري كرتا النفس المطمئنة تحصل لون يدو خير كم بابي كنت كنت شركة وكاين دلاضي وي كرسي أو وي دافتي يعني ونفس ننكي لها برغة كشري يعني تمرطني يو كبير كي يو واحد تدوي اللوسية ونفو نكي لها يسقو كورا يستفرس كدقى اما يضع حمار كادا قرى يصايب فوشو اما هذا فرقات فوشو كدقى يا والله ماذا مدون ان الخير كادو فوشو يدمير الشركة وفوشو ان نغطوا مدون اذا النفس المطمئنة الا بذكر الله تطمئن القلوب ونفس الله كحص الشيء ولحس اللوني حسكيسا قرطي سيدة درادي أي النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي وحو كم قنقلي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إله وضو نفتنا وقرقار بولها شرك إذا إله وضان كام قنقلي بولي نبي الله يوسف مركي خصوة كرطي محولها ناكتي مركي هالشيء
xagga iska dhalaalay guriga u xidhatay boqorku qabay meesha sare joogtay ay halaakisay khatarta gelisay muxuu nabi yuusuf nasbiday markii hore macaad allah buu istaagay markay haddana haweenka kale ugu sii yeedhatay ee kooxdu isugu timay faraha la isjarjaray ee inay tidhi lain lam yafcal ma aamuru layusjanan waxay tidhi anaa doonay fastactam waa i diiday laakiin ballan waxaan ku qaaday bay tihi waxa aan ka rabo haddaan ufulinin inaan xabsiga ku ridi doono ee dumarkii kale u markhaati furan ay yidhahdeen kani mid laga sabraba maaha xagguu u cararay nebi yuusuf muxuu yidhi wuxuu u cararay ilaahay subxaana watacaala isagoo leh ilaahay o xabsigaa agteyda lagaga jacayl badayay waxay iigu yeedhayaan haddaanad adigu ii gargaarin oo ii hiilin asbu ilayhina waakun min aljaahiliin wain lam tasrif cani ilahu haddaanad kuwan adigu iga kaxayn buu leeya o adigu iga weecinin asbu ilayhin waakun min aljaahiliin waa ku dhacaya waxa kanoo jaahiliintan ka mid noqonaya idan qofka mu'minka ahi wuxuu ku badbaadaa kow xuma markuu arko inuu ilaahay xasuusto inuu ilaahay tala saarto inuu ilaahay magan galo saa daraaddeed buu nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo khudbadaynayo dad la hadlaya ayuu wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina naftu xataa iyadoo xaqa sheegaysay khatar tahay iyadoo xaqa sheegaysa ayaa isla weynay gashaa istidhaahdaa dadku waa masaakiintaa ku hor farfadhiyo uno de adun baa wax sheegaya guruur iyo kibir iyo cujbi galaa isla weynaya ay gashaa waxa uu sheegayo o dham ay khayr beelaan haddaanu ikhlaas qalbigiisa ku jirin haddaanu naftatan tirayn garaynin oo ilaahay ku xidhan subxaana watacaala walidalik buu nabi moxamed isagoo dad khudbadaynayo wuxuu leeyahy wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ilaahay waxaan ka magan gelayaa naftan sharkeeda maxaa kamid ahaa ducooyinkii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslim ku yaalay wuxuu nabigu laha maxay allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamawlaaha wuxuu ku ducaysanayay allahuma aati nafsi taqwaha ilaahay ou naftayda alla kacabsigeeda adigu sii wazakiha ilaahu adigu tahir adigu nadiifi anta khayru man zakaaha ilaahu cid wax tahirto wax nadiifisa adaa u khayr badan anta waliyuha wamawlaaha ilaahu tan adaa gacanta ku haya adun baa hogaamiyo maamula ilaahay o adigu ii hagaaji buu leeyahy nafta idan naftu inay daahirsantaa waxay u baahantahy inaad ilahay in badan u barido inaan cujub iyo gurur ku qaadan inaad sodhan nafta waad xakamayn karta war waa khatar idan ilaahay la kaasho inaad ilaahay aada ula kaashatid in ilaahay subxaana watacaala naftatan kula xakameeyo waana ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya walawlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa ilahay baa wuxuu leeyahy walawlaa fadlu llahi waraxmatuh dadow haddii lala-yahay ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariistiisa haddii lala-yahay in ilaahay xaqa idin waafajiyo in isagu xaqaba idin soo dejiyey inuu rusul idin soo diro waayo raxmadiisa maxaa kamid a wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin hidaayada dhammaanteed baa naxariistiisiiya inuu xaqa ku waafajiyo bitawfiiqi ayaad xaqa ku waafaqaysaa haddii ilaahay kaalmadiisa iyo gargaarkiisa lala-yahay dheeraadkiisa iyo waxtarkiisa haddii lala-yahay baa ilahay yidhi ma zakaa minkum min axad mid idinka idinka midima ma nadiifoobeen ba la yidhi cidiba idinkama daahirsateen ma zakaa minkum min axadi abada walakina allaha yuzaki man yashaa ilaahay baa dahira ciduu doono idan tahaarati nafsi halka koowaada loo galaa waa ilaahay baryadiisa inaad ilaahay barido subxaana watacaala inuu tubta toosan kugu riixo inaad ilaahay barido inuu naftaada kula qabto naftu inay dahirsanto iyo waxyaabaay ku dahirsanto waxyaabaha lagu garto waxaa kamid a wuxuu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka imaamu abu daawud uu warinayo ee sheekh ilalbanina uu صaxiixu ljaamica kusoo aroorinayo ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان ثلاث من فعلهن
faqad daaqa طacma aliimaan. saddex qofkii sameeyaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu dhadhamiyey iimaanka dhadhankiisa, iimaankuu dhadhamiyey. saddexdu waa maxay? waa man cabad allaha caza wajal waxdah liannahu laa ilaha illa huwa, waa qofka alle keligii caabuda ee gaalnimo dhammaanteed meel iska dhiga, aqbalay inuu ilaahay u hogaansanaado. waayo nafta waxa koowaade laga tahiraa waa qooq iyo kibirka. waa ay diiddo dee addoon bay hayda, addoonnimada ay diiddo oo isaga taagto. hadday addoonnimo diiddo najaasadii koowaad baa gashay. inama almushrikuuna najas. waxay ahayd naftu inay ilaahay addoon u ahaato. saa daraaddeed wuxuu nabigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayh, qofka ilaahay caabuda, man cabada allaha caza wajalla waxdah, ee bixiye buu nabigu yihi waacطaa zakata maalih طayibata biha nafsu fi kuli caamin, ee bixiya xoolihiisa zakadeeda dhiiba sanad walba, isagoo naftiisu ay raalli ka tahy. yani xoolo jujub lagaga qaadiya waxaan ahayne arkaya inuu naftiisa ku tahirayo dhiiba, ee aan bixinin buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh, ta gabowday ama ta liidata ama ta bugta ama ta xun. ilaahay idinma weydiisan baa la yidhi xoolaha kuwa ugu fiicane, idina de kuwa ugu liitaha dhiibina, kuwa dhexdhexe dhiiba zakadii markaad bixinaysa. wuxuu kaloo nebigu yihi wazakaa nafsah. saddex shay buu xadiidkani tilmaamaya. ka koowaad waa inaad cibaadada ogolaatiyo addoonnimo. ka labaad waa inaad gacanta halkan ku xidhine aada xaggan u fidiso oo dhiibto oo zakaat iyo wixii kugu waajibiye sadaqaadka iyo khayrka aada baxsatid. ka saddexaad wuxuu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wazakaa nafsah, naftiisana tahiray. nin raggii meesha fadhiyaya baa wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyow, oo waa maxay nafta tahirkeedu? maxaa lagu tahiraya? yani naftanaa tiri waa la tahiraya, waa sidee daahirkeedu? wuxuu nabigu yihi an yaclama ana allaha caza wajala macahu xaysu kan. masalat almuraaqaba buu nabigu ku sharxay. waa inuu qofku garto meel kastoo uu joogaba in alle subxaana watacaala uu daalacanayo. haddaad taa garato macnaheedu waxay noqonaysaa in aada xishooto ilahay ka xishootid, ood macsida iska ilaalisid, ood xumaad ka fogaatid. idan waxay leenahay taskiyadan aynu u baahanay waa taqwo un. falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman itaqa. waa naftiina ha amaanina baa ilahay yihi subxaana watacaala, huwa aclamu biman itaqa. ilahay isagaa og ka alle ka bacqaya ee ka cabsanaya. qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa. ilahay baa wuxuu leeyahay qad aflaxa man tazakkaa. waxaa liibaanay man tazakkaa ay man tatahar, ninka naftiisa daahiriya oo wadakara sma rabbihi fasalla, oo ilaahay subxaana watacaala magaciisa xusa oo tukada. kaas baa liibaanay baa ilahay leeyahy subxaana watacaala. naftu waxay ku daahirsan tahay in xanuunadeeda iyo madmadowyada iyo guraacyada ay leedahay, shahawaadkeeda xisiga iyo kuwa macnawigaaba in laga ilaaliyo. waxaanaynu leenahay nafta ha laga daahiriya waa maxay? waa in laga daahiriyaa gaalnimo, shirki iyo kufr. waa in laga daahiriyaa maxay? nifaaq. waa in laga daahiriyaa maxay? istus iyo riyaa. waa in laga daahiriyaa maxay? cujb iyo guruur, isla weyni iyo guruur ku qaada. cujbigu waa ma waxaa laga yaabaa waxoogaa yaroo acmaala inaad samaysato saalixa, laakiin ay kula bunbuunsanaato unaad tira wallahi ragga cidimo kaama horayso. waxay ahayd inaad markaad dhamaysato ilaahay uga istaagfuralaysatid. maxaa la yidhi salaada tukado markaad salaada dhamaysa maxay dheh? 3 jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfir. kaanaha inaad cudur daaranayso salaadaadu siday u liidatay. uma afiidu min xaytu afaada annaas wastakfiru llah. idan inaan cujub iyo guruur ku gelin. in nafta la daahiriyo maxay laga daahiriyo? jaah iyo magacdoon.
حب الرئاسة والبروز نفط بني آدم كو إنه موقته ويكو أبورنت لكن هداد مال سلا يكون موقع حق عبادة إله يكون موقع واجعلني للمتقين إماما كوي صالحين تبقي دعيتني محيكو دعيتني واجعلني للمتقين إله قوة ألك عبصد إمامي قصيري مسألة بتواضع ومضى أنا وحي أوبا هانتا محي إله العبادة حقه فرقه كتاقني قد قوية انت متقين تا إله أيمدو ضي قطر لكن وحلو باهي نقفكو نفتي سكا طاهره هنقوريا كان كرسي إيا مقع إيا ماموس الرادينيش ومقع إيا ماموس كحقيك الراديو واجعل لي لسان صدق في الآخرين إنو كالرادية آخرة إيا ونك إنو كالرادية محي نفطة إنو كتقو حدود النفس نفطة إيا وحي دوني سونا نفطة هدي وإذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ويوم حنين بإلهين بل وحا حصوصة مالنتي حنين مركي نفسه يدياب قال يسمى إلهي وحبابا يدي كتري ويدي وصحابة النبي أخوة عين كالمولي وحين نوبة هنا مركي النفس الله طاهر يا الله والله قد طاهر يا الله أدونك إيا شعايل كيسة إيا وحا كحرا شهوات النفس غورا نفطا إن آخر الله الرباية ولذلك فالرقي رقاها مثلا عبد الله بن محيرين من اللي رجل عالمة علماء دي الشام ده كان هنشرتي عابد الشام بالغوث المامين وهنشري عبد الله بن محيرين باوحا اللي يدي ميل بيمو وحلو يفسدي ننكي وحكي يفسدي مركي وحكي لي يفسدي باي صالة قويدة وارناب قرأي نكاد وحكي بين الشتي وحي بني سوري ماي فقصير هذا مروى الشيخي اللي رجل عبد الله بن محيرين ومحي مشيك ويدي عبد الله حناقي مكة dadku maxay rabaan inay u sheegaan ninka kan inuu deesha khabal iyo caalimkii reer shaamil laga dambeeyay taa macnaheedu waa maxay de gorgorta gawadaadkan ku yara adkaynin weeyaan inuu wax ka dhimo bay doonayaan oo de sheekha uu yara ninkan waa caalimkii dhamaayay kaba dambeeyeen reer shaam laakiin sheekhoodii uu ka cadhooda wuxuu ku yidhi ya naas inama nashtari biamwaalina wala nashtari bidiinina warmiydan ogeyn buu yidhi inaan xoolahayga wax ku iibsanayo ee inaanan diinta wax ku iibsanaynin yani diintan aan rumaysnay ilahay baan wax kaga doonayaa buu leeyahy dadku in lacagta badh laygaga daayo uguma socdo diinta aakhiraan ku wadaa buu leeyahy war dadka xoolahaygaan wax kaga iibsanayaa buu leeyahy aniga ninowna waa sheekh hebel iyo baabka iyanan isla imanen xoolaha si aa wax u kala iibsan jirteen un baynu wax u kala iibsanayna idan ninkan caalimka ee muslimka ahi darsi buu barayay dadka kana ah inaanu alla kacabsigiisa kan rabin in kursiga loogaga kaco alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in wan loogu qalo alla kacabsigiisa kan inaanu ku rabin in tijaarada hoos loogu dhigo walidalik baa raggii saalixiinta ahaa maxaa kuwa fog u raadsan ibnu baas raxmat ullahi caleyhi dhawaan dhintay ayaa waxa la yidhi nin muslim oo lacag u dhiibay wuxuu ku yihi war dukaankaa tag oo masaajidkaa rooga kuga soo iibi oo ha ku odhanin buu yidhi ibnu baas baa isoo diray kii wuu cararo meeshii uu tago war roggani waa imisa wacankan oo intan oo war sheekh ibnu baas baa soo diray masaajid baa la rabaaye intaad siinaysaa buu ku yidhi qaad buu ku yidhi mar hadduu sheekh ugu soo diray wuu soo qaaday alaabta ibnu baas markaa uu ka xanaaqay wuxuu ku yidhi war miyaanan ku odhanin ha ku odhanin ibnu baas baa ii soo dirtay ha ku odhanin lacagta maxaan kuugu dhiibay wax kusoo iibisoo kumaan lahayn lacagtan qaad oo masaajidka alaab ugu soo iibaan ku yidhi ee hebel uta kumaan odhan oo ibnu baas baa masaajidka u doonaya alaabe soo dhigdhi kumaan lahayn yani maxay uga jeedaan dadkan saalixiintii waxay rabaan inay lacagtooda wax ku gataan may rabin wejigoodi iyo magacooda inay hantihu ku helaan oo ay dhaqaalo ku qaataan saa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay cabdillahi ibnu muxayriin inama nashtari biamwaalina wala nashtari bidiinina idan qofka muslimkii wuxuu u baahanyay naftiisa inuu ka tahiro min xubi iljaah waalsulطaan waalshuhra intaba inuu ka daahir yeelo wuxuu u baahan yahay naftiisa inuu ka daahir yeelo xaasidnimo inuu ka daahir yeelo shux iyo bakaylnimo inuu ka daahir yeelo adduun jacayl inuu ka daahir yeelo maxay naftaadu waxay doontaba inaad iska raacdo ilahay muxuu qur-aanka ku leeyahy waama man khaafa maqaama rabbi wanaha الnafsa can اlhawa faina aljannata hiya alma'wa ilahay baa wuxuu leeyahy waama man khaafa
maqaama rabbi, qofka ka cabsada ilaahay suurtaagiisa, oo wanaha nafsa can ilhawa, naftiisana ka reebay hawadeediiyo waxay iska doontay. naftu waxay ku tidhaahdaa haddaad raacdo maxaad noqonaysaa? afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa waadalahu allahu calaa cilmi. ilaahay baa wuxuu leeyahy bal ka warrama kii naftiisa ilaah ka dhigtay baa ilaahay yidhi, saaad ilaah uga dhiganaysaa? yacni waa inay noqoto waxay ku amartaba inaad fuliso, inaad iyadoo daba gasho. waa ka naftiisa ilaah ka dhigtay ka warrama baa ilaahay yidhi, waadalahu allahu calaa cilmi. waxa la rabay markaa muxuu ahaa? وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ninka naftiisa ka reeba waxa iska doorayso oo dhan u taliya yani iyada taladeeda aqbalin. waa kii saaxib alburda albusiri, busiri ninkii la odhan jiray gabayaaga ahaa ee burdaha lahaa. burduhu waa gabay qayb fiican iyo qayb xunba leh. soomaalidu malaa dadka bukaabay ku akrin jirtay, waxba nin bu ka gabay kama tare, waa gabay une. burduhu waa gabay soomaalidu ay akrin jirtay. gabaygaasi qaybo fiicanna wuu leeyahay, qayba xunna wuu leeyahay, qayba aan qurux badnayn oo quluwi ku jirana wuu leeyahay haddii daahirkiisa loo eego. qaybo qurux badanna wuu leeyahay. qaybihiisa quruxda badanle waxaa kamid ah wannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calى xub الridaaci wain tuftimhu yanfatimi. qaybihiisa quruxda le waxaa kamid a wuxuu yihi naftu waa ilma caruur oo kale un. haddaad ilma caruura naaska la iskaga sii daaya buu yidhi o iska jaqown, isagu daaba ma yaqaano, wuu wadi un. 2 jir 3 jir 4 jir wuu iska wadi un bu leeyahy. haddii laakin laga jaro waa ka go-a un bu leeyahy. ilmaha marka naaska laga daynaya maxaa la sameeya? isagoo weli isagu naaskii rabun ba islaanta u diidaa. 2-3 cashu ooyaayo kolba islaanta kusoo yara ag wareegaayo, marka la eriyo iska tagaa. waa soo noqdaa berri haddana yara maacuudiyaayo isku dayaa. 2-3 cashe marka la eriyo maalin afraadda waddu iska qaadaa. maalin dambe naas ma doone dee dadkiisu dhinaca kaga biira. naftu buu leeyahay ninkan busiri la yidhaahdaa waa ilmaha yare naaska laga jarayo. waxaad u diida buu leeyahy 2-3 cashe way ku warwareegi. haddaad se ma jirto tidhaahdo oo beri markay soo wareegto ma jirto aad tidhaahdo 2-3 cashun haddaad adkaysata buu leeyahy marka dambe tubtay qaadaysa, u baahan mayso shaygaas. balwad iyo wax kastaaba waa inta aad ka goynayso inaad uhayso maxay? subtida inaad intaa uhayso. haddaad intaa ka adkaysato berrito waddada toosan bay qaadaysaa. saa daraaddeed bu wuxuu lahaa busiri gabaygiisaasi fasrif hawaaha waxaadiran tuwalliihi ina alhawa ma tawallaa yusmi aw yasami. ka fogow buu lahaa, hawadeeda ka durki buu lahaa, oo iska ilaali inaad iyada daba gashaad madax ka dhigata buu sheegaya. gabaygiisaasi qaybaha quruxda badan le waxaa kamid ah wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima wain huma maxadaaka nusxi fatahimi. naftu buu yihi iyo shayطaanka war labadaba caasi buu yihi, oo xataa hadday kula taliyaan buu yihi taladooda tuhmi, talaha u qaadani. tala nafta ka timi iyo shayطaan haddaad maqasho tuhum buu leeyahay taladooda. idan ikhwati fi lcaqiida waxaynu leenahay waxaynu u baahan nahay inaynu naftan rabayno oo ku rabayno tawxiidka ilaahay subxaana watacaala. tawxiidku waa maxay? inay kibir oo dhan intay ka timaado qiraso addoonnimo. tawxiidku waa inaad aqbashid inaad ilaahay addoonkii noqotid. inaynu ku tababaro maxay? alikhlaas. inay jaah iyo magac iyo sultad iyo waxaan intay ka tagto acmaasha ay samaynayso ilaahay ula niyoto iyo janno iyo maalinta aakhire inay wanaag ku hesho. inaynu tababaro oo maxay ku tababaro? asidq wakunuu maca asaadiqiin. inay run sheegto oo waxa ay rumaysantay ka run sheegto, oo aqwaasheeda ka run sheegto, oo afcaasheeda iyo axwaasheeda o dhan ka run sheegto. min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh. waxay rumaysnaayeen bay ka run sheegeen. kunuu maca asaadiqiin. afkaad ka run sheegaysa, inaad run sheegtid axwaashaada o dhan. waxaynu u baahanay inaynu rabayno ku rabayno cala almaxaba walkhawfi walraja. inaynu rabayno ku rabayno cala alwaraci walsabri walmuraaqabati waltawba.
manaazilu saa'iriin bayna iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaynu ku rabayno oo halkaad shalay joogtay aanad maanta joogin. haddaad meel qura ku hayso, haddaad naftan matalan 5 salaadood iyo intaa ku hayso oo aad hore u wadi weydo berri dumaad arkaysa iyadoo 5 iska soo geejinayso bar dayacaysa. laakiin waxaa loo baahay inay kor u socoto. ha isku dayin weligaa inaad meel taagnaato. haddaad meel taagan tahay nuzuulku ma bilaabmayo, dib u dhuxun baad bilaabaysa. laakiin weligaa waxaad isku daydaa sanadkii hore halkaad joogtay inaad sanadka daba taagnaanin. aqoon kororsataya, cilmi kororsataya, cibaado kororsataya, horumar inaad hore u socoto ku day. hadday se shay uu meel istaago waxa bilaabma u naxay nuqsaantiisii. istimraariyadu wax fudud maaha. cibaadaadka layna baray oo dhami waxbay rabeeyaan. matalan salaada ilahay muxuu leeyay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar. salaad haddii sideedii loo dhadhansado oo sidii alla yidhi loo tukado oo laga run sheego oo iyadoo caqligu soo jeeda la tukado oo aad garatid foodan waxaad dhulka ugu xoqayso, tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar baa ilahay yidhi. xumaha iyo zinadaba iyadaa reebta baa ilahay yidhi subxaana watacaala. haddii soonku uu noqdo kii loo baahnaa, kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilahay yidhi. soom baa laydinku waajib yeelay si kuwii idinka idinka horreeyaba loogu waajib yeelay. maxaa loo waajib yeelay? soonku inuu qasdigiisii dhaliyo. waa maxay? lacalakum tattaquun, inaa ilahay ka cabsataan, alla ka cabsi inaa ku gaadhaan. oo soonku muxuu samaynaya? waxaa lagu yihi markaad soomantahay waha caayi, waha maagi, ha murmin, cibaadayso, dikriga badi, kan samee. idan xumo oo dhanna waad kasii fogaanaysaa, samo oo dhanna waad sii samaynaysaa. macnaheedu waxa weya naftan inaad rabaynayso, korinayso, inaad daahir yeelayso, wanaagga aad ku tababarayso. xaj taga baa layna yidhi oo xoolihiini intaad qaadataan daala oo halkaa taga oo orda oo socda oo cidhidhi. maxaa la faa'iidaya? yani ma in nafta la daaliya ubaa loogu talagalay intaad xoolo iyo lacag bixiso aad maka tagtid, buurtaa maka uniya dhinacyadeeda inaad carartid oo mar dadka badhna biixsid badhna jiidhid, markaa la fadhiistana aad sheekaysid oo tidhahda bal siyaasadii ka warramayo reer hebel xaggee wax marinayay. maxaa soo kordhisay markaa? lacagtiina waad bixisay, xiiq iyo daalla waad soo kordhinaysaa. asalku wuxuu ahaa waxa la yidhi meesha taga. maxaa loo tegaya? falaa fusuuqa walaa rafata walaa jidaal. faasiqnimo oo dhan iyo warkeed meel dhiga, muran iyo doodi meel iska dhiga, waxaas oo dhan ka tag. maxaa la rabaa? waxaa la rabaa good training practicala inaad aragto. waxaad tilaada halkan markaad iska joogto wallahi nin dulqaad badan waad noqonaysaa ama nin sabir badan. laakiin markaad meel yaroo cidhiidhiya soo gashee xaggan lagaa soo riixay xaggan lagaa soo riixo maxaad samayn? waar naga durka inaad tidhaahdo iyo inaad tidhahdo waar muslimka ha dhibina bal siyaro dhuubuunu halkaad ka bixi karta ka bax. waa practical, waa sabirkii lagugu waaninayey, dulqaadkii lagugu waaninayey, wixii lagugu waaninayey baa la rabaa inaad practical usoo fulisid, inaad soo aragtid, inaad dareentid maxay sawaasiya. meel nin madow iyo nin cad iyo nin xoolo lahaa iyo nin magac lahaa iyo nin hebel la odhan jiray iyo miskiinkuba ay wada guclaynayaan oo laba maroo cadcad sitaan oo aan boos gaari jirin. haddii aad magaalo iman lahayd waxaa laga yaabi lahaa inuu jeebkaagu un ku xukumi lahaa. meelaha masaakiinta joogta iyo buuqa iyo waxa inaad iska dayso. waxaa laga yaaba maanta qoladeenan dabadaa joogtaa markay soomaaliya tagaan waxaa la yaro raadiya war hodheelka magaalada yaa u yaro nadiifsaniyo. marka hore wuxuu ka fikiraya hodheel yaroo nadiifa inuu dego caynka, ma rabo dabaqaadka caadiga inuu dhex galo. hodheel yaroo yaro nadiif oo meelihii uu ka yimi uu yaro eeg ayuu rabaa inuu galo. halka kan laakiin waxaa la yidhi hodheel iyo waxaas ma jiraan, banaankaasna wada jiifsada, isdhex yaaca, ama hanti haysa ama ha haysanin, halkaa un dadkaagaa iska dhex orod. idan waa maxay? waa practical la rabo in iimaan lagugu tarbiyeeyo, dhaqan iyo akhlaaq in lagu baro. waxay leenahay marka cibaadaadku haddii sidii loogu talagalay iyadoo dadku u fahamsan yahay ay u fulinayaan, macnaheedu waxa weeyaan in la daahir yeelayo naftan oo la daahir yeelayo. zakaa la yidhi bixi. maxaa loo bixinaya? khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha baa ilahay. sadaqa ka qaad, naftooda iyo maalkooda iyo wuxoodaba lagu daahir yeelayo. waxaan kusoo koobaya waktigii waa gebagebo, waa dhammaaday. wax waliba waa barasho. nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama alxilmu bitaxallum. cilmiguna waa barasha buu nebigu yidhi.
qof waliba wuxuu dhashay isagaa waxba garanaynin laakiin qof waliba intuu yaqaano noloshuu ka faaidaysto uu bar dulqaadkuna buu nebigu yihi waa barasho maxaa looga jeedaa naf waliba waxay leedahay limit bay leedahay marka hore genetically wixii lagu abuuraya laakiin waa la train garan karaa waa la kobcin karaa kobacaasi wuxuu keeni karaa markaa inaad dariiqii xaqa ahaa aada marto waa laga yaaba maalinta hore inaad cadhooto shay laakiin haddaad naftan isku daydo inaad xakamayso oo aad tidhahdo horta caydu xaggee dadka yeeshaa maxay ku dhuftaa qofkan isagun baa caytama adiga halkee ku go-aysa haddaad iska dhaadhiciso dan hadduu ku caayo hadduu ku ammaano qiimo badan midna kuuma sameeye waayo wasaad adigu ufakertay ku xidhantay waxaan leeyahay marka ilahay wuxuu nabiga kusoo diray waxaa kamid ah wasiyaabaka fatahir ya ayuha almudathir qum faandir warabaka fakabir wasiyaabaka fatahir siyaabka culamada qaar baa qulubta ku fasiray qaar marada sare tahaara jismiya iyo badaniya iyo nafsiya labadaba waa laynaga rabaa inay kor iyo kalba daahir noqono dee ragow iyo dumarow wa isku daro naftani barbaarin iyo kobcin bay u baahan tahay waa la istusayaa ariiqa lagu rabeeye ha loo dadaalo wallahu aclam billahi tawfiiq ilaahay subxaanahu jala wacala ajar iyo xasanaad haka siiyo walaalkeen sheekh mustafe muxaadarada qayimka inoo soo jeediyey innagana allah inaga dhigo kuwii wanaageeda qaata ee ku dhaqma waxaan jecel lahay 4 su-aalood oo gaagaaban inaan ka daba turno muxaadarada sida awgeed waxaa la idinka codsanaya maadaama shiikiiba uu weli fadhiyo inaydaan idinku ka hor yaacin haddii abeedno 2 su-aalood oo aan isku soo qabtay waxay ka yimaadeen dhalinyaradeenna yaryar oo aad ogtiin inay baahi badan u qabaan runtii xagga diinta gabadh baa soo qortay waxay leedahay waa inuu qofku guursado waxayna wada dhalay aadan iyo xaawo ayna wada dhalay sidaa awgeed waxaynu nahay walaalo haddii aynu walaalo nahay sidee baynu isku guursanaynaa waxa la guursanaya waxaan la guursanaynin ilaahay baa sheegay subxaana watacaala yani maaha masale caqliga lagu baxfiyo waa masale waxyigu uu tilmaamayo aadam wuxuu dhalay tiro bate kala tage kuwii hore uu dhalay baa walaale kuwa iminka joogaa dee walaale maahe adeero iyo ilma adeeriya waxbay wada noqonaya haddii dee si soomaalida u tirin jirtay loo tiriyo nin waliba intuu aadan ka tirsanayo haddii lasoo tiriyo ama adeer baa isu noqonaysa ama ilma adeer ama awow meelahaasay soo baxaysaa cala kulli xaal qur-aanku wuxuu sheegay cid gaara oo ay mamnuuc tahay wuxuu sheegay wixii adiga kaa farcama inaad guursan karin wixii asal ku ana inaanad guursan karin wixii adiga kaa farcama kaa dashay kuusii dhalay adiga kaa farcama iyo wixii adiga asal ku ah aabe awow yani ayeeyooyin hooyooyin xaggaa mar labada midna inaad guursan karin xawaashida wixii hareeraha kaa xiga waxaa la sheegay kow labadan ugu dhow un walaashan iyo kuwan ugu dhow ee aabbo la walaala ama hooyo la walaalaa xawaashida ka dambaysa kuma jiraan yani kuwa ugu dhow waa maxay waa habaryar iyo eedo ama adeer iyo abti xaggan kalena waa maxay waa adiga dee un walaasha ama kaa wixii dhaafe ka dambeeya kuma jiraan yani in adeerta iyo habar wadaagga iyo in abtida iyo waxaas oo dhami waa iska banaayiin kuma jiraan xagga kale waxaa la sheegay gabadha aada qabto ama xaaskaaga yani iyadana inaanad dee hooyadeed iyo ayeedeed iyo kuwa inaad guursan karin idan waxaan uga jeedaa un aadam wuxuu dhalay basharinimadun bay maanta wadaagaan waxa badan oo kale ay wadaagaan ma jiraan xagga marka laga eego shareecadu waxa ay tiri yaan la guursanin ilaahay baa jideeya masalan aadam waktigiisii bashar kale ma jirin ilaahay wuxuu jideeyey aadam kuwuu dhalay inay isguursadaan bale waxaa la jideeyey aadam kii laga abuuray inuu guursado xaawaso isaga lagama abuurin haddana isaga ayaa la yidhi uu guursaday ilahay ba u sharciyeeyey aadam kuwuu dhalay waxaa la faray inay iyagu isguursadaan ba isu banaanayd ama alaan inaga sharcigeenna nebi maxamed loo soo dhibay salawaatu ullahi wasalaamu calayh sida aan sheegay weeyaan dee caqli iyo falsafad kalena uma baahna
hadii warku intaa ka badanyana qofku gaar ay ugu yimaado si gaaladaynu la akriyi doonaa de markaas. su-aasha kale oo iyadana dhalinyarada ka timi, wiil baa soo qoray. sheikh wuxuu leeyahay waxaan ahay wiil qaangaada, laakiin da-da norwejigu ay qaydeen inuu ku guursado maan gaadhin. waxaan la heshiiyey gabadh iyana qaangaada laakiin da-da aan gaadhin, inaan isguursanana waan rabaa. muddadaasuna ma sugi karno, wayna haysaa. marka waxaan u baahanahay in talo aan ku guursado laysiiyo. khayr allaha ku siiyo guurso, waa nisfu diinku u dhamaystirmaya. waalidiintana waxaan u sheegayaa inay ufudaydiyaan. kollay ogaalkay berigii ugu dambeysay 5 sano ka hor norwejiga qaanuunkooda wuxuu sheegayey kuwa yaryare hadday 16 jir meelaha gaadhaan inay isguursan karaan bisharti in waalidiinta ogashahay. bisharti in waalidiinta ogashahay. saasaan rajaynaya inuu xataa qaanuunkoodu dhigi jiray. marka qaanuun iyo qaanuun la-aan iska guurso, wallahu aclam. labada su-aalood waan isku qabanayaa. waxay caruuraha ayay ka hadlayaan. waalidiinta qof kamida wuxuu leeyahay caruurtii hadday dhaqaalo tahay iyo hadday wakti tahayba waan bixiyey, ay sidaa tahay way iga sii fakanayaan oo way iga sii yaacayaan. maxaan markaa samayn karaa sheikow? su-aasha kalena waxay leedahay caruurtii tuulo cidla ayaan deganahay, waxaa laygaga khasbay inay xiisadii kiristaanka khasab ay dhigtaan. aad baan u walwalsanahay, maxaan sameeyaa culimoy? qofkii raba inuu badbaada, siduu ku badbaado inuu aada uga fikro weeyaan. marka koowaad, masalan soomaaliya markaan joognay ee dhibtu dhacday ee aada baqatay, waxaad ku tala gashay inaad badbaado. miiniskii aad ku badbaadi lahayd oo dhanna waad samaysay. orodkii halkaad kusoo gashay, ubey adduun baad bixisay, maskax baad bixisay, tamar baad bixisay, dadaal baad bixisay. waxaasoo dhan waxaad u samaynaysay maxay? inaad badbaado. maanta haddii dhib kale ku qabsato oo tiiba kaaga darani, oo maalinta waxaa laga yaabaa inaad la cararaysay nafta iyo jidhku inuu wax noqdo, inaad la cararaysay. haddii maanta dhib ka adag ku qabsato oo ay noqoto inaad badbaadi weydo, inaad badbaado inaad ku daydo weeyaan. idan waa la garan karaa sida lagu badbaadi karo. hadi waaxida. ka labaad, yani waxaan uga jeedaa hadday dhab tahay inaad rabto inaad badbaado, you can do. macnaheedu waad samayn kartaa, maaha inaanay mushkilad kaa hor imanaynin. noloshu gebigeeduba waa mushkilad. noloshu gebigeedu waa mushkilad la xalilayo. maalintaad mid ka baxdaba mid cusub unbaa ku hor taagan. ilaa intaad godka ka gelaysana mashaakilka unbaad maalinba la kabjiidaysaa. ka labaad aan tilmaamaya waxa weeyaan, waxaan aada idinkula talinaya inaad wadankii tagtaan. weli maan odhan haddayna u guurtaan, waxaan idin inaad tagtaan. inaad tagtaan adiga iyo iyagaba wax badan bay ka bedelaysaa, walow fasaxana ha noqotee. fasaxu miyuu badan yihi? 2 bilood, 3 bilood, 4 bilood inaad tagto oo aad ciyaalka geyso. waxaa laga yaaba inaynu inagu ka fekerayno kan yar iyo islaanta iyo labada yaryar iyo intaan markaa isku daro waa $5,000. $5,000 baan ku bixiyaa inay intay tagaan haddana soo noqdaan. inagu inaysaa ufekerayna laga yaaba. ku bixi. waxaa la $5,000 ee ay visitka ugu tageen wadankoodii, maskaxdooda xagga kale usoo rogaysa. maskaxdooda waxaanad adigu ka rogi karin bay ka rogayaan. kow dhaqan buu soo baranaya, culture buu soo baranaya, dadkiisi buu soo baranaya, siday u nool yihiin buu soo baranaya. wax badan buu waxaanad adigu islahayn. mithaal basiita baan ku siinaya. inan yar baanu israacnay oo aan dhalay. waa inan yar oo dee 5 jir buu markaa meelaha ahaa, 6 jir, 5 jir iyo waxoogaa baan filaya, 6 buu gaadhay markaa ayaan rajaynaya. waxaanu ka daadegnay Hargeysa airport. su-aashii koowaad ee weydiiyaa qariib igu noqotay. wuxuu igu yidhi, aabo soomaalidu ma wada madowba?
ismaan lahayn inaan kan wax kalaba bare soomaalida madowga u sheeg ismaan lahayn de waayo maskaxdaydiba kuma jirin soomaalidu inay madow tahay inaan ilmahayga ka dhaadhiciya igumama jirin wax la barayo laakiin markay noqotay awal su-aal uu weydiiyo markuu garoonkii istaagay Hargeysa ee uu dadkii eegay wixii kasoo horbaxay bay madow noqdeen su-aashii koowaad ee uu weydiiya waxay noqotay aab idan waxaan ogaaday wax badan oo aanan anigu ilmahayga bari karin inay jiraan waa maqan culture-kii iyo dhaqankii iyo dadkii iyo afkii markuu dhex tegayna ilmuhu siduu u fakerayaaba uu change garaysmaya waxaa in badan lai sheegaa inamo meelahan markay joogeen laga quustay oo loo taag waayey 17 jiro 16 jiro la kaxeeyey oo la geeyey meelihii aabayaashoodii adeeradood joogeen oo markuu tegay inuu dib u hambaaburay inta odayadii la soo hadlaan lacag soo dadkii aad bay u baahan yihiin awal wuxuu ku lahaa war maxaad wax ugu diraysaan kuwan bay xoogsadaan iyaguba markuu arkay meeshii siday tahayna lacag soo dir iyo kan soo dir markay soo noqdeenna ka bilaabay dadkii aad bay u baahan yihiin anigu waan xoogsi tegaya iyo waxbaan baranaya waad iyo andarayskii baa tahay oo dhan ilaabay waayo isagoo 17 jiro xagga hortego halkan ku haystay inuu andarayj aan caqliba ku jirin yahay halkoona waaba loo soo shaxaa tegay oo ilaa ninka Yurub ka yimi waaba loo soo shaxaa tegayba yani ninkan wixii loo sheegi jiray markuu halkan joogay iyo markuu halkan tegay wixii uu la kulmay baaba isqaban waayay waxaan uga jeedaa $1,000 yuu qiimo idin la yeelan $1,000 kan tigidhka ugu jaraysaan qiimo yuu idin la yeelan war gaaladuba buurahaasay ku fuulaan 1000 kan visit kasta arday baa la saaraa buur baa la saaraa kan baa la saaraa caruurtan reerkan idinka dhammaantii waxaan idinkula tarinaya guurista aynu beri dambe isla gaadhno malaawadaadka guurayda yidhahdo horaa uga xanaaqdaane bal aan beri dambe iyada isla gaadhna waxaan idin leeyahay war wadankii taga oo u taga inaad experience heshaan inaad dadkaaga maskaxdooda soo bedeli kartid inay wax soo kororsan karaan war marnaba isku mid ma aha ilmaha wadankii soo arkay ilmaha halka jooga marnaba isku mid ma aha isku si uma fakerayaan isku si wax uma qiimeeyaan isku si wax uma tarayaan idan anigu labada qodob baan idin tilmaamaya haddaad khatar ku jirtana markii horeba khatarta saad uga soo baxsatay imkana waad garanaysaa ee uga baxso haddaad weli waan sii leedahayna war bal meeshii taga wax badan baa idiin soo kordhayay wallahu aclam su-aashan waxaan umalaynaya inay dhalinyaro ka timi waxay leeyihin waxaa jirtaa dhalinyaro jecel inay masaajidada tagaan ama ay diinta bartaan ama hadday gabdha yihiin ay xijaabka sharciga qaataan laakiin waalidiintii dhalay ay ka hortaagan yihiin ama labada waalid ay isku haystaan oo midna u diidan yahay midna uu ogol yahay dhibaatada ayaanu ku jirnaaye sheikh maxaad waalidiinta iyada kula talinaysaa waxaan umalaynaya su-aashan inaan lasoo qorin haddaanay jirin laakiin waa wax laga naxo qof muslim ku abtirsanaya oo ilmihii uu dhalay uu leeyahy waan wanaagsanaanaya le ha wanaagsanaani muxuu ka rabaa inuu maxay noqdo mana discoteca tagaan buu doonaya marka yani ilmihii uu dhalay hadday leeyihin waan wanaagsanaanaya war xataa kooxda ka soo qaad inaad tiladay nimankan waa niman yaro mutaطarifiina meesha jooga ama waxbaa ka yaro qaldan inay waxoogaa iyagoo ay ka qaldan yihiin kuu bartaan islaamka ka roon inay suuqa kuu galaan taa miyaad ku xisaabtamay xataa haddaad tidhaahdo qoladan war in yar baa ka qaldan oo waxoogaa bay yaro durugsan yihin in waxoogaa islaamnimihii ku qaldanto ayaa waxay kaaga roon tahay inuu suuqa kaa galo idan wax laga fekera maaha ilma aad dhashay oo kule ama waan isasturaya ama masaajid baan tegaya ama caynkan meed aakhira iyo ilaahay ka baqarayni subxaana watacaala ilmahana waxaan u sheegaya dee xorriyadda halkan laydinku siiyey xumaantun laydinma siisane xaqaba u adeegsada aaba xaquma le inuu ku dilo qaanuunkaa dhigaya soo ma ahayn kuma maagi karo ma markaa xumaha doonaysaan unbaa qaanuunkan adeegsataan waayo macsi maaha inaad khayrka samaysaa macsi maaha yani haddaad intuu diido haddaad adigu samayso macsi maad samaynin ilaahay labada waalid wuxuu ina faray inaynu ateecno si kasta inaynu ateecno sharti kuraa lagu xidhay ilahay macsidiisaan ku ateecina la yidhi wixii kaleo dhan waa laga ateecayo idan wanaagsanaada hadday idin diidaan lagu ateeci maayo
qaanuunka dawladuna waa kugu taageeraya halkaad doonaysa inaad tagtay hadduu halkaad doonaysa khayrka noqotay qaanuunkuna waa ku taageeraya adna waxaan kuleeyahay dhiiro waalidkiina waxaan leeyahay ilahay ka baqa asalaamu calaykum